Assalaamu calaykum. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso taariikhaha dadka saameynta ku yeeshay maskaxdaada, balse waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaalkan taariikh nololeedkii Ilhaan Cumar. Inta aan muuqaalkan guda gelin, fadlan subscribe saar channelka, like-tana taabo, siina share garay. Ilhaan Cumar waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho 4 Oktoobar 1981 waxayna roorkoodu u guureen magaalada Baydhabo kadib markii ay Ilhaan qoyskoodu ku soo biirtay. Waxay ahayd gabadhii u yaray 7 caruur ah oo walaalaheed ahaa. Aabaheed Nuur Cumar waxa uu ahaa tababare macallinnimo, halka hooyadeed ay geeriyootay Ilhaan oo caruur ahayd. Sidaas darteed waxaa soo koriyay aabaheed iyo ayeeyad. Kadib markii uu bilowday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya 1981 waxa ay qoyskoodii Ilhaan Cumar u qaxeen dalka Kenya, halkaas oo ay qaxooti muddo 4 sano ah ku ahaayeen. Waxayna 4taas sano kadib dejin ka heleen dalka Mareykanka oo ay iminka guulo waaweyn oo dhanka siyaasadda ka gaartay. Dabayaaqadkii sanadkii 1995 ayay Ilhaan iyo qoyskoodu nasiib u yeesheen inay ka mid noqdaan tiro qoysas qaxooti ahaa oo gobolka Virginia ee dalka Mareykanka dibadejin looga sameeyay, halkaasi oo ay isaga guureen wax uu yar kadib iyagoo u guuray magaalada Minneapolis, halkaasi oo ay ka bilowday barashada luqadda Ingiriisiga. Waxaana la sheegay inay muddo yar 3 bil ah ka yar ku baratay luqadda maadaama ay ahayd qof aad u yar 12 sano jir ahayd. Sidaasina ay ugu suurto gashay in ay luqadda si sahlan ay ku barato. Kadib markii ay luqadda baratay ayaa waxaa la sheegay in ay ku biirtay iskuulka sare ee Dixon High School, waxaana ay macallimiintii iyo ardaydii ay waxbarasho wadaaga ahaayeen ku sheegeen in ay ahayd qof aad u firfircoon kuna fiicnayd isdhexgalka bulshada. Markii ay ka qalin jebisay iskuulka sare ayay Ilhaan Cumar durbadiiba ku biirtay jaamacadda North Dakota State University, waxayna ka baratay kulliyadda cilmiga siyaasadda iyadoo ka qalin bedelatay sanadii 2011. Ilhaan waxaa iska qiyaasi karay ama la sii saadaalin karay in ay siyaasadda ay heer ka gaari doonto maadaama ay ahayd qof aad u daneeya arrimaha siyaasadda. Waxaana la sheegay in ay arrimaha siyaasadda gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda ay ka sii korodhsatay iskuulka takhasusiga siyaasadda ee Harvard School of Public Affairs. Shaqadii u horeysay oo ay Ilhaan qabato ayaa lagu sheegay in ay ahayd macallimad jaamacad Minnesota dhigta arrimaha bulshada iyo horumarinta. Shaqadeedii xigtay ayaa ahayd in ay maamulo ka noqotay ololihii doorashada 2012 ee Senator Cory Zazik. Waxay halkaasina kaga biirtay arrimaha siyaasadda. Intaas ayaan ku soo koobaynaa taariikh nololeedkii